safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka guriceel. arrintan ayaa soo baxday markii taliyo sare oo ka tirsan danab lagu dilay dagaaladii toddobaadkan ka dhacay guriceel. haddaba falastiin axmed iimaan ayaa la xidhiidhay safaaradda maraykanka ee muqdisho. warbixintan ayayna inoo diyaarisay. sarkaal u hadlay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegay in maraykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxdeen ciidamada danab oo ay maraykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada gurceel. sarkaalkaasi u hadlay safaaradda maraykanka ayaa v o e da u sheegay in maraykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka galmudug ayna arkeen wararka warbaahintu tabisay ee sheegaya in taliya cabdilatiif faifle iyo xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka. sarkaalkaasi ayaa u sheegay in maraykanku uu tacsi u dirayo qoysaska iyo dhammaan dadkii uu saameeyey dagaalkaasi. sarkaalkaasi oo sii hadlayeyna wuxuu intaasi ku daray in maraykanku ay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya gurceel in ay joojiyaan howlgallada milatariga ayna galaan wadahadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro. waxaa intaasi ku daray sarkaalkaasi in dowladda maraykanka ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guuleysto al-shabaab sida uu sheegay sarkaalku. taas iyadoo laga duulaya ayuu yiri sarkaalkaasi waxaan dib u eegis ku sameyneynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saan qaadaysa siyaasadda iyo hadafka maraykanka. haddaba howlgalka danab ee gurceel iyo hadalka kasoo baxay safaaradda maraykanka ayaan wax ka weydiiyey korneel axmed cabdulaahi sheikh oo hore u ahaa taliyaha ciidamada danab. ugu horeyna waxa aan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay dib u eegista maraykanka ee taageeradooda danab. wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas sababtaa maraykanka qayb weyn bay ka qayb qaadataa taakuleynta iyo xaquuqsiinta ciidanka danab. dowladda iyo maraykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka danab, laakiin markii laga soo tago qaybtaas inta kale wixii tababar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, hub sidoo kale gaadiidka sidoo kale maraykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada danab. waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah dee tababarka iyo korjoogteynta iyo talabixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada danab. haba ahaatee hadda inay si maaragtay remotely ay ku bixinayaan sababta way ka tageen oo way kusoo lalaabtaan si joogto uma joogaan dalka, laakiin qaybtaasa ugu weyn. marka dib u eegistaas hadday samaynayaan dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in danab loo aasaasay loo tababaray taakuleynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha argagixisada sida al-shabaab iyo daacish oo ka falgala dalka. marka maxay dowladda soomaaliya iyo maraykanku heshiis kaga yihiin ciidanka danab? ma jiraa waxyaabo ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaabo aanay samayn karin? horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba maraykanka ay sheegaan waxaa weeye danab in qaab khaldan loo isticmaalin. runtii heshiiskay ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalin maxaa ka mid ah marka maogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka ama way balaaran kartaa ama marka qaab khaldan mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin danab. sababta ahna aan kuu sheega falastiin waxaa weeye danab waa ciidanka keliya awal ahayn jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oona lasoo dhaweyn jiray. cid oo ka qabtay cuqduud ma jirin, danab baa imaatay oo kasoo qayb gashay. ciidamada kale moogtahay marbo waxbaa si jira, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo soomaaliya oo dhan aad bay usoo dhaweyn jireen danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayd. taasaa laga baqaya marka. marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in maraykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameyneynaa. yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan? walaal horta waa ciidankan waa ciidan soomaaliyeed.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. laakiin waxaa muhiim ah dee fiiri maxay ku xiran tahay madaxda dalka siday u isticmaalayaan. marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin si qaab qaldan way u isticmaali karaan ciidankaas. taasaa laga digayay marka. laakiin ciidankan de waa ciidan soomaaliyeed, hoggaanka dalku hoos tagayaa, taliyaha ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gaashaandhiga hoos tagaan. saas oo kale janjartaas way heraarkiga iyo kala dambeynta saas uu yahay. laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleen iyo tababar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, de waxay leeyihiin inay kole talada wax ku leeyihiin. wasaaradda gaashaandhigga ma isleedahay waa ay wargelisa maraykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen galmudug? horta ciidanka de maraykankana marmar iyaga howlgalo diyaariyo oo maaragtay loo diyaar garoobo oo tababarkaas ay qaataan, kadibna dawladda ay wargeliyaan oo dhahayaan mar kasta ma og tahay howlgelinta ciidankan waxaa iska leh dee awooddaas waxaa iska leh ciidanka Soomaaliya. marka hoggaan talis gaar ee leedahay danab, taliya leedahay, taliyahaasee maaragtay kala hadlaan qorshooyinka. marka way dhacdaa mara badan in dawladdii oo kala hadashay maraykanka inay waxyaalo qaar inay isticmaalaan sida oo kale tusaale oo kale waardiye inay noqonayaan oo kale. qof madax meel hadduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa, macnaha securitygiisa ee ka qayb qaataan. taasoo kale awal waa la weydiin jiray maraykanka. runtiina way dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kale baa jiro oo loo isticmaali karo. ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dawladda inay ciidankan aada u tababaran yihiin, aada u qalabeysan yihiin, lagu talagalana inay shabaab dalka ka cirib tiraan. in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aada maaragtay dalka dhan ku teedsan yahay, ciidankan lagu isticmaalo arrimahaas. marka mar kastoo maraykan taas way ka digi jireen. dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaalo badan ay geliyeen, tababarkan ay bixiyeen, heshiisna uu salka u yahay, dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin. waxaa dhici karta maraykanka inay haddii taakuleenta la noqdaan ciidan soomaaliyeed ay noqonayaan, awalna way ahayeen, laakiin hadda waxaa keliya go-ayso talada ay ku lahayd maraykanka. dhankan kalena maxaa ka go-ayso dee taakuleenta ay bixin jireen. marka taas waa in laisbarbar dhigo, ciidankan ma sii joogi karaa, ma sii howlgeli karaa taakuleenta maraykanka haddii la noqdaan. codkaasi gaashaanla sare axmed cabdulaahi sheekh oo ahaa taliyihii hore ee danab waxa uu u dambeeyey warbixintii iyo falanqayntii ay inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan.